بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو عبد الرحمن حسن إسماعيل محكمة سرية قدوم محكمة سرية قبل كشرر إن جودهان وربحنتن قيمتها وربحنتها السنة الله هذا أن كتشرنو إن أيانا هاي حبناها كسوق قيب قليا ماركتي سنة الله ويجي وربحنتهاس وربحنتني وامد أذو قيمة بدن وأيو واحد تيين ساقوا ماذا أي كرسور كجاريان إيوه حناشدا قنعنت بالشدة أما كاستمر كانوا أذيعينه هدي أن كاسي وربحين كوبان فإذا قيمتني نول هذا هاي سيدا ده بيصلح حسابتن كيو حل هذا محوها مدح بناني ده قرصوركو وميد إنه مهمة وشبات كوبادي عن لنا يوم حي قيمتنا كيف إذا سنينه مدح بناني أي عيسى قيمتني سيدا كلا هذا إصلاح حسابتن كماشي إنه كبح معها isla xisaabtan baan marka ayaa sanadka markuu dhamaado maxaa la soo qabtay maxaa goldoloolo jiray xageen u soconaa intaas la isku weydiiyaa shirweynahan maxaan ku dhahday sanadlaha maanta maalinkiisii labaadan ku jirno waxa kale oo isna noo raacsan warbixintan qiimeynta lagu sameeyo waxqabadkii sanadka la soo dhaafay hadii aan qiimeyn lagu sameynin wixii la soo qabtay oo goldoloolada lama ogaanayo goldoloolada jirta lama ogaanayo qancinta bulshada heerkaynu ka taaganahay lama ogaanayo tayada go'aan ay maarta umada siinay adeegan siinay nooca uu yahay iyo picture-ka maarta uu yahay ma fahmi karno kaliya waxaan ku fahmaynaa kulamada noocan oo kala waxaan aad ugu faraxsanahay waa sanadkii labaad ee kula weynahan uu dhaco isbedelka marka maxkamadaha ka yimid intii maarta kulamadan la bilaabay kasako isbedelka guud ee dalka iyo deegaanka ka dhacay gaar ahaan maxkamadaha marka aan ka hadlayno shirweynahan intii la bilaabay tayada go'aamada ayaa heer maartay fiican soo gaadhay isbedel fiican oo taabagal ayaa laga sameeyay garsoorku way xisaabtamayaan go'aanka uu gaarayo soo xor ah oo madax bannaan ayuu gaarayaa dan haddana wuxuu aaminsan yahay sanadweynuhu shirweynaha sanadlaha markii la gaaray la xisaabtami doono waxqabadkiisa inta la soo hordhigo iyadoo aan la dulmiyeynin laakiin wixii uu qabtay maartay goldoladan loo sheegayo wanaagiisana laga abaal marinayo saas darteed waxaan jeclaan lahaa in walibana aan sii joogtayno shirweynaha noocan oo kala waayo wuxuu lafdhabar u yahay cadaaladda ay ummaddu inaga sugayso ayuu lafdhabar u yahay sidaad ogtahay baa isbedelka ka dhacay dalka iyo deegaanka labaduba cid kasta oo ay muhiim buu ahaa isbedelku laakiin wuxuu lafdhabar u yahay oo uu waxtar buuxda siiyey iyo madax bannaani isbedelkaasi waa garsoorka horta marka koobaad waa isbedelka guud ee dalka iyo deegaanka ka dhacay waayo shalay waxaan ogeyn isbedelka ka hor garsoorkeena madax bannaanidiisu waxay ahayd mid maartay mugdi uu ku jiro maanta waa cadcadaan iyo cadaalad waxay maartay dadku ka fishaani ayagoo jooga guryahooda ayagoo jooga maartay meheradooda ayagoo jooga goobta ay garta loogu qaadayo filashada dadku maanta way ka bedelan tahay shalay toona sida ay ahayd sababtay tahay shalay garsooruhu isagaaba lafiisa u cabsanayay maanta laakiin garsoorku waa mid madax bannaan waa mid helay xaqiijinta madax bannaanida dhabta ah ee garsoorku uu leeyahay isagoo ka faa'iideysanaya isbedelka dalka iyo deegaanka ka dhacay qiimeynihii hore iyo qiimeyntan hadda maxay ku kala duwan yihiin run ahaantii markastoo ay qiimeyni dhacdo gashi baa laga qaataa goldololooyinka jira heerka hadda maanta aynu marayno shalay maaha halkaan taagnay waan soo guurnay qiimeyntii ka horeysay waxbaynu iskula xisaabtamaynay heer dabool baynu maanta soo gaadhnay marka aynu kor uga soo kacnay halkii aynu shalay toona joognay oo dhinaca adeeg bixinta dhinaca qancinta maxaan ku rahday bulshada tayada go'aamada iyo wixii la halmaalaba waxaan aaminsanahay qiimeyntani inay u tahay mid lafdhabara waan sii wadi doonaa bulshaduna waxa weeyaan cadcadaan bay kala kulmaysaa